بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن داودي هالكن وبرت يوتيوب مدشا ورarka qodobada warkayaga aad ku daawan doontaan anuna aan idin soo gudbin doona waxa qayb ka noqonaya ciidanka Itoobiya oo war saxaafadeedkii ugu horeeyay ka soo saaray dagaalka ay la galeen al-shabaab ciidanka Itoobiya waxay sheegeen in dagaalkii cuslaa ee ka dhacay feerfeer ay ku dileen boqol dagaalyahan oo ka mid ah al-shabaab labada dhinac guula ayay ka kala sheeganayaan guud ahaan waxaan idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalada oo dhowr jiha noqday labada dhinac shabaab iyo ciidanka New Police dagaalka culus ee u dhaxeeya ee feerfeer ka soconaya oo si laba kaclay waxaynu eegi doonaa qasaaraha soo kala gaaray qodobada kale ee warkayaga aad ku daawan doontaan anuna aan idin soo gudbin doonaa waxa qayb ka noqonaya Mustafa Cagjar madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo dib ugu laabtay jigjiga waxa uu ka warbixiyay dagaalkii ciidanka New Police ay la galeen shabaab Mustafa Cagjar waxa uu xusay in aag ka baxsan xuduudda inay degi doonaan ciidanka New Police iyo kuwa kale oo ka tirsan federaalka dhexe Itoobiya kadib hadalka ka soo baxay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa markaasi arintaasi ay noqotay mid muran culus oo ka dhashay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka dhiidhisay arinta ku aadan in ciidanka Itoobiya ay ka soo talaabaan xadka labada dal ay wadaagaan haddaba waxaynu eegi doonaa tilaabada caynkan ah maxaa ka dhalan karo falanqayn ayaan ku samayn doonaa daawadayaal haddii rabbi uu ka raali noqdo qodobadaas iyo qodobada kale ee nagu soo kordhay inta warkayaga aynu ku guda jirno ayaan si wada jir ah daawadayaal u daawan doonaa aan ku xasuusiyo haddii aad nagu cusub tahay inaad subscribe noo saarto gambaleelka aad furato si mar waliba aad u hesho wararka warbixinada xogaha iyo barnaamijyaadka gaarka ah ee aan halkan idinkugu soo gudbino qaybaha hoose ee commentiga noogu reeb orahdaada kaaga aadan wararka iyo warbixinada aan ku soo gudbinayno muuqaaladeena si share garay oo asxaabtaada la wadaag si mar waliba ay u helaan wararkii ugu dambeeyay ee dunida daafaheeda ka dhaca halkan waa madasha ee mahadsanid daawade guud ahaan warkayaga badi waxaynu ku eegi doonaa isla markaasna falanqayn aan ku samayn doonaa dagaalada dhowrka jiha noqday ee culus ee u dhaxeeya ciidanka shabaab iyo sidaas oo kale ciidanka New Police maalmihii aynu ka soo gudubnay ciidan ka tirsan federaalka dhexe Itoobiya qayb ayay ka soo noqdeen dagaalka culus dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan shabaab ay gudbeen xadka Soomaaliya kuwaas oo doonaya in gudaha u galaan Itoobiya waxaana markaas dagaal culus uu dhaxmaray ciidan ka tirsan New Police iyo sidaas oo kale ciidanka shabaab oo markii hore ka baxay aaga gobolka Bakool kuwaas oo doonaya in ay u tilaabaan xadka labada dal isla markaasna doonaya in gudaha ay u galaan ciidanka New Police oo dagaal culus la galay ciidan ka tirsan shabaab ayaa ugu dambeyn waxay noqotay in ciidankii shabaab ka tirsanaa ee ka tilaabay xadka Bakool markaasi guud ahaan dagaal culus oo halkaasi ka dhaxmaro dagaalka ayaa dhowr jiha noqday kadib markii ciidamo ka tirsan shabaab geesta kale ay ka tilaabeen xadka Hirshabelle kuwaas oo aaga feerfeer oo markaasi xuduudda ah ka gudbay isla markaasna dagaal culus uu halkaasi ku dhaxmaray ciidanka New Police iyo shabaab ciidan ka tirsan cutubyo ka tirsan ciidanka militariga federaalka dhexe Itoobiya ayaa qayb ka soo noqday dagaalka culus ee feerfeer madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo furmaha hore ee dagaalka yimid isla markaasna ciidanka halkaas kula hadlayay waxa uu ka warbixiyay dagaalada dhowrka jiha ah waxa uu halkaasi kula dardaarmay ciidanka ka tirsan New Police waxa uu sidaas oo kale markaasi dhiiranaan u soo jeediyay in ay dhammaan ka saaraan goobaha ay kaga sugan yihiin shabaabka Mustafa Cagjar waxa uu xusay in marnaba aysan u dulqaadan doonin in markaasi ciidooda inta ay ku sugan yihiin shabaab in markaasi ay dagaalka la joojiyo geesta kale madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar kadib feerfeer uu ka soo noqday waxa uu dib ugu soo laabtay jigjiga waxa uuna ka warbixiyay dagaaladii shabaab ay la galeen ciidanka New Police iyo federaalka dhexe Itoobiya Mustafa Cagjar oo soo gaaray jigjiga khudbad dheer uu jeediyay ugu horeyn waxa uu sheegay in dagaaladii ka soconayay aagga feerfeer oo ah markaas aaggii labaad ee dagaalka uu ka qarxay in markaasi guulo weyn ay ka gaareen ciidanka New Police iyo sidaas oo kale ciidanka federaalka dhexe ee Itoobiya
waxa uuna xusay in markaasi askartii ka tirsaneyd shabaab ee xadka ka soo tilaabay in guud ahaan markaasi dagaalkooda ay soo afjareen. waxa uu sidaas oo kale madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu sheegay in markaasi xilligan wixii ka bilowday ay sameyn doonaan istiraatiijiyad dagaal oo ka duwan midii hore. waxa uuna xusay in markaas ciidanka Itoobiya iyo ciidan ka tirsan federaalka dhexe Itoobiya iyo ciidanka Liu Police in damacoodu uu yahay in ay degaan aag ka baxsan aadka xaaga xuduudda Itoobiya. arrinta Mustafa Cagjar ayaa waxay noqotay mid muran badan dhalisay si aad ahna loo gorfeeyo kadib marka uu xusay in markaasi meel ka baxsan Itoobiya ay ciidanka Itoobiya iyo ciidanka Liu Police ay doonayaan inay degaan. federaalka dhexe ee Itoobiya ayaa horay markaasi waxaa loogu jeedinayay eedeymo ku aadan in si sharci darro ay kaga soo tilaabeen xadka isla markaasna ay doonayaan in gudaha Soomaaliya ay soo galaan. dadka gorfeeya siyaasadda Soomaaliya tani waxay ku xuseen in markaasi mar kale dagaal Soomaaliya iyo Itoobiya oo waji kala yeesha inuu noqon karo kadib markii madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu si toos ah markaasi jigjiga kaga dhawaaqay in qorshahooda uu ku aadan yahay meel ka baxsan Itoobiya in fariisimo ay ka dhigtaan, taas oo ka dhigan in markaasi xuduudda Soomaaliya ay soo tilaabayaan. waxa uuna tan sabab uga dhigay kadib dagaalada shabaab ay ku soo qaadeen. waxa uu xusay si markaasi shabaabka ay kaga hortagaan in ay doonayaan in meel ka baxsan Soomaaliya ay markaasi gudaha u galaan. markana ciidanka Itoobiya war-saxaafadeedkoodii ugu horreeyay ay soo saareen kadib dagaaladii shabaab ay kula galeen Feerfeer. ciidanka Itoobiya ayaa war-saxaafadeedkooda waxay ku sheegeen ku dhowaad 100 dagaalyahan oo ka tirsan shabaab inay ku dileen dagaalka Feerfeer. waxay sidaas oo kala xuseen guud ahaan markaas in ay soo gabagabeeyeen dagaalkii cuslaa ee halkaasi ku dhex maray shabaab iyo sidaas oo kale ciidanka Liu Police. dowladda dhexe ee dalka Itoobiya ayaa markii ugu horreysay soo saartay war-saxaafadeed ay uga hadlayso dagaalkii dhowaan dhex maray markaasi shabaab iyo ciidanka dowlad deegaanka oo gacan ka helayay militariga federaalka dhexe Itoobiya. warmurtiyeedka oo ahaa mid la sugayay in muddo ah ayaa lagu sheegay in shabaab la gaarsiiyey khasaare xoogan. waxaa kaloo la tabiyey in markaasi ay sii badanayso tirada xubnaha shabaab ah ee lagu qabanayo gudaha dalka Itoobiya, gaar ahaan markaasi gobolka la yiraahdo Feerfeer. hoggaanka al-shabaab dhankooda waxay horay u sheegeen inay guulo waaweyn ka gaareen dagaalada labada jiha ah ay ku qaadeen ciidanka Liu Police iyo federaalka dhexe Itoobiya. tani waxay noqonaysaa war-saxaafadeedkii ugu horreeyay ee markaasi ka soo baxa federaalka dhexe Itoobiya oo ay dagaalka kaga hadlaan. war-saxaafadeedkan ayaa si buuxda markaasi ugu saabsan faahfaahinada dagaalkii isxigay ee ka dhacay magaalooyin u dhow xadka kala qaybiya Itoobiya iyo Soomaaliya, kuwaas oo ay ku lug lahaayeen al-shabaab iyo ciidanka Liu Police ee dowlad deegaanka Soomaalida. xogta lagu sheegay waxaa ka mid ahayd in 8 iyo sidaas oo kale 5 xubnood oo ka tirsan shabaab lagu dilay dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Feerfeer ee markaasi ku dhow xadka Itoobiya ay la wadaagto gobolka Hiiraan. dagaalkii ka dhacay gobolka Feerfeer oo ilaa iyo haatan lagu soo waramayo inuu si goosgoos ah uga socdo halkaas ayaa markaasi lagu dilay shabaab tiradooda la gaarsiiyay 209 xubnood sida lagu sheegay warkan ka soo baxay dowladda federaalka dhexe Itoobiya. madaxweynaha markaasi dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa uu xusay in dagaaladani ay guulo waaweyn ka gaareen. nuqulada ugu muhiimsan war-saxaafadeedka waxaa qayb ka ahaa in markaasi guulo waaweyn la gaaray. waxaana lagu yiri shabaab damacooda waxa uu ahaa inay ka gudbaan deegaanka la yiraahdo Ceelkari si markaasi ay u gaaraan dhulka jawigiisu sareeya ee ka bilowda halkaas isuna xira deegaanada Soomaaliya iyo Oromada si ay u qalqal ugu sameeyaan markaasna jabhadna halkaas uga noqdaan ayaga oo ku biirayo kooxda la yiraahdo Sheena ee ka dagaalanta dalka Itoobiya ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. ururka Sheena oo qayb ka ahaa dhaqdhaqaaqyada Oromada ayay dowladda Itoobiya u aqoonsatay urur argagixiso. tan iyo markii xiisadda markaasi ay bilaabatay waxaa soo baxayay warar ku saabsan in shabaab ay xiriir la leeyihiin ururkaas ayna ku dagaalamayaan sidii ay isugu gudbi lahaayeen. waxyaabaha kale ee war-saxaafadeedka lagu sheegay waxaa ka mid ahaa Itoobiya inay gacanta ku dhigtay 3 ka mid ah qalabka isgaarsiinta ay shabaabka markaasi adeegsanayeen, kuwaas oo la sheegay
in tiradooda guud ay ahayd 4. mas-uuliyiinta dowladda Itoobiya ayaa ka hadlay arrintan. geesta kale mas-uuliyiinta dowladda Itoobiya warkan kuma aysan qeexin qorshahooda xiga ee ku saabsan dagaalka iyo tallaabada ay qaadi doonaan. waxa uuna walaac ka taagan yahay amni darrada ka soo cusboonaatay deegaankaas. hase yeeshee madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar dhowaan waxa uu gaaray furmaha hore ee dagaalka. waxa uuna sheegay in la burburin doono aagga markaasi ay shabaab markaasi ka caagan yihiin. wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay goobaha lagu dagaalamayo waxay sheegayaan in weli ay socdaan markaasi isku dhacyo iyo dagaalo goosgoos ah oo halkaasi ka jira. dad ku sugan meelo ka tirsan gobolka Afdheer gaar ahaan degmada la yiraahdo Qooxle iyo deegaanada kale ee Cadaale ee gobolka Shabeelle waxay sidaas oo kale sheegayaan in halkaasi laga maqlayo dhawaqa rasaasta labada dhinac ay isku adeegsanayaan dagaalkuna uu yahay mid socda. saraakiil ka tirsan laamaha amniga waxa ay ilaa iyo shalay waxa sheegayaan inay dileen askar aad u fara badan oo ka tirsan shabaab. ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca shabaab ee ku aadan faahfaahinada dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Feerfeer iyo seegashada ciidanka New Police iyo sidaas oo kale ciidanka Itoobiya ay ku sheegayaan ku dhawaad tiro gaaraysa 200 oo askari in dagaalkaas ay ku dileen. daawade waxaynu ku soo gudbin doonaa guud ahaan wararka ugu dambeeya ee ku gadaaman dagaalka culus ee ka soconaya xadka qaybiya Soomaaliya iyo Itoobiya ee u dhaxeeya shabaab iyo ciidanka New Police ee garab ka helayo dowladda federaalka dhexe ee Itoobiya. guud ahaan warkii aad kala socotay madasha wararka waa naga intaa. waad ku mahadsantahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga. haddii tahay booqashadaadii kugu horeysay subscribe noo saar gambaleelka furo si mar waliba aad u hesho wararka warbixinada xogaha iyo barnaamijyaadka halkan aan idinkugu soo gudbino. qaybaha hoose ee commentiga noogu reeb oraahdaada kaaga aadan wararkii warbixinadan kuu soo gudbinayno. muuqaaladayna sii sheer garay oo asxaabtaada la wadaag. mahadsanid daawade halkan waa madasha.